تربل سيا فريد عمر محمود عثمان محمود iyo ciise maxamuud haddaad shisha u sii baxdo waqooyi galbeedna tribal eja fadhiyo habar awal iyo habar yoonsi habar jeclo waa iska cadahayo jaala abgaal iyo jaala afar sano talisa iska leh loo filaa walin nool waaligeel war dheer jiraad walaweyn ka weydiisay iswaraysta adii waalidka waqtigu ma waare waliga ogaaw ninba waayihiisa wala loo tama waqtigeedan sugeena waxa la yiraahdaa aniga waxaan ka soo jeedaa dad reer dhoobey ah beeraley ah waxaa isku dhacay wiil beeraley ah iyo wiil xoololey ah markay isdagaaleen deedna kii xoololeyda wuxuu soo watay yar kale oo beeraley ah wuxuu ku yiri niyow ninbaa isoo garaacay waxaan rabaa inaad iga celiso dabeecadahana waa la socotaa beeraleyda waa dad iska qawooban xoololeydana waa dad aad u kulul markii ninkii loo yimid ninkii wuxuu ku yiri niyow ninkii waa kana ee ku bilaw ninkii wuxuu ku yiri oo beeraleyga niyow ma waalanta koow horta in la iscaayo waaye kadib la xanaaqo kadib la dhidido kadib ay feerta bilaawata waxaa ula jeedaa baarlamaanka muddo ayaa waxa waa juqeyn lagu waday oo la yiri waa baarlamaanka ugu liito isaga iscaaynayo isla baarlamaanka ugu liito waaye at the same time isaga waxa weeyaan wax kastaba waxa waa wareejinayo waxaan rabnaa ma falsafadeynayna maanta waa saraaxa hadlayna koow guddoonku waa u mahad celinaynaa inay garteen qodobkan inay meesha keenaan hooyada mashaakisha waxa waaye waa dastuurkan aniga beel la yiraahdo beesha jareerwana ka soo jeedaa beesha shanaadan ah dastuurkaasaana ku dulmanahay waxaan ugu dulmanahay waxa weeyaan ciidaa dan ku qabto aniga dan kuma qabi qodobka 71 tusaale ahaan markaad fiiriso 72 aan yiraahday aqalka sare ilaahan idinku dhaarshay 54 aqal sare ayaa waxaad tiraahdeen hal ayaad ka leedihiin ma dulmi ka weynaa jirto aad fiirsateen waxaan si gaara weliba u tilmaamayaa halka hadda ay madasha taalo la leeyahay waa lagu wada hadlayaa madaxweyne dani nin wanaagsan siyaasi ah boqor ah wanaagsan waayo waa u hambalyeynayna laakiin ninka ka tolanaysid kabtiisa la eega madaxweynow Puntland ayaad waxa weeyaan 48 xildhibaan beel shanaad ka siisay 5 xildhibaan aqal sare oo 12 ah ayaad waxba ka siinin cadaaladda aan ka filan karo maxay tahay aniga arinta dastuurka markay tahay waxaan u arkaa laba qolo oo la yiraahdo jaala daarood iyo jaala hawiye oo isku meermeeriya oo waxay rabaan isku sheega madaxweynaha halkaas uu fariistay wuxuu wacday afar in adeertiisa uu wacday xaajiga waxa weeyaan qaarna waxay nugula jiraan golaha shacabka nugula jiraan qaarna waa madax hore la yiri waxay yiraahdeen dastuurka Allah hakiyo madaxweyne dani wuxuu wacday maxamuud saleebaan uu wacday in adeeradiis ayagiina waxay yiraahdeen dastuurka Allah hakiyo war heede markay arinta meeshaas marayso oo lagu daray maamul goboleedyadana idin sheegaya marka cidda kaliya ay ku hartay calan Soomaali horta waa beesha shanaad calanka Soomaali cidda ku hartay waa beesha shanaad gabigiina calamo kala yeelateen halkaan markaan Hirshabeelle ka soo jeedo qofka madaxweyne noqonayo oo qofka madaxweyne ku xogeen noqonayo waa la sii og yahay maca dalika waxaad leedahay muwaadin ayaa tahay xaq ayaad u leedahay inaad isharaxdo waxa weeyaan inaad wax doorataba waa iska cadahayo jaala abgaal iyo jaala afar sano talisa iska leh galmudug haddaad aado waxa weeyaan afarta oday adeerkooda iska leh maxamuud hiraab waxa ku xigo waa jaala mareexaan haddaad aado jubbooyinkana jaala ogaadani jaala mareexaan fadhiyo haddaad Puntland aadana
تربل سيا فريد عمر محمود عثمان محمود iyo ciise maxamuud haddaad shisha u sii baxdo waqooyi galbeedna tribal eja fadhiyo habar awal iyo habar yoonsi habar jeclo south west haddaad aadana emta weynaa fadhiyo mirifle basaa fadhido digilkii iyo hawiyihii iyo jareertii iyo biimaalkii deganaa ama dirtii degneed waxba kuma laha ma maalin kastaan fiirsan karnaa marka in inta lagu falsafadeeyo nala yidhaahdo waxaa weeyaan dalkan wallahi war annaga cadaalad darada waaba ka daalnayba hadda waxaan taagannahay war cadaalad darada si cadaalad loogu qaybiyaan taagannahay dulmi waaba ka daalnayba fariinta aan dirahay waxay tahay madaxweynaha waa ilaaliyaha sharciga hadduu meeshaas aado beesha shanaad annagana tuulaha hiiraan aan shir ku qabsanaynaa 31 xildhibaan gobolka hiiraan aan ku qabsanaynaa banaankaana ka istaagana weliba waxa ma dhibay waxa waa doorashooyinkaan ee doorashooyin dambe aan galeen ma lahan ilaa qof iyo cod laga gaaro waayo waxa weeyaan annaga cid nagu matasha kuraasteena maalin kastaba qolaa u fariisato waxa way go'aan ka gaarto qolooyinka international community la yiraahdo hadday aadaan ummaday kala qaybinayaan dulmiga ka shaqeynayaan wadajirka ummaday kala dhantaalayaan dulmiga waxa way garab u yihiin siyaasiyiinta ee hadda la sheegay waxaa la sheegayaa in qalad uu ku jiro dastuurkan lama dhahayo qaladka hala soxo waxaa la leeyahay waqtigeeda lama taagna ilaa inta aan ku jiri karaa marka inaan dulmigaas waxa weeyaan ku jiro xilli ma فتح وكان waa soo gabagabeynaya